بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستا oo aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka diiradda Kalsan oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV barnaamijkeena diiradda Kalsan toddobaad kasta waxaan diiradda ku saarnaa mowduucan isleenahay daawadayaasha waa ay danaynayaan in mowduucaasi ay daawadaan ama ay ka ogaadaan xog badan oo ku saabsan barnaamijka diiradda Kalsan ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa arrin la xiriirta dhinaca suxufiyiinta ama wariyeyaasha warbixin ay soo saartay hay'adda CPJ ee difaacda ama guddiga difaaca suxufiyiinta fadhigoodu uu yahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo saareen warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda suxufiyiinta caalamka waxaana kaalinta koowaad ka galay dhinaca tacadiga suxufiyiinta loo geysto dalka Soomaaliya mana aha markii ugu horeysay waa markii afraad ee Soomaaliya ama dalka Soomaaliya uu noqdo dal kaalinta koowaad ama safka hore kaga jira dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo geysto suxufiyiinta iyo warbaahinta haddaba toddobaadkan barnaamijkeena diiradda Kalsan arrintaas ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka waxaa iigu marti ah oo igala qayb galaya أستاذ عيدروس محمد عبدي أفسجارو أو قدوميها هيئة ميديا فور بيس أما ورباهنتا نبضة هي سيدو كله صحفي وين وفارح عبدي ورسمة فرح اي بي أو صحفي صوماليات قارهانا صور قاضي لا شقية اي بي أما Associated Press waxaan jeclahay ugu horeyn inaan iraahdo bal ku soo dhawaada telefishinka Kalsan okay aad baad u mahadsantihiin inaad naga aqbasheen cusmaada nagala qayb gashaan barnaamijkeena su-aasha ugu horeysa ee aan jeclahay inaan idin weydiiyo kulley waad ka warhaysaan warbixintii ay soo saartay CPJ Soomaaliya waxay noqotay dalka koowaad ama meesha ugu badan ama ugu liidata ee dhibaatooyinka lagu geysto suxufiyiinta sida ay sheegeen suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan dilal tacadiyo iyo dhibaatooyin aad u tiro badan idinka aragtidiina maxaa u sababa in la bartilmaameedsado ama la dilo oo dil loo geysto suxufi meel walba ha joogo kama hadlayna Soomaaliya oo kaliya marka hore guud ahaan caalamka tacadiye ayaa ka dhaca sida ay sheegtay UNESCO 10kii sano ee ugu dambeeyay caalamka waxaa lagu dilay wariyaal ka badan 930 wariye 10 sano gudahood bal maxaa u sababa in la bartilmaameedsado ama la dilo suxufiyiinta waxaan jeclahay inaan marka hore aan su'aasha siiyo Caydiruus Maxamed Cabdi alxamdulillahi rabbil caalamiin marka ugu horeysa waa sharaf inoo tahay faarax oo kaleeto nin khabiir weyn ah maanta dood nagala qayb galo waayo u bisil yahay arrintaas labo marka arrinta naftirkeeda aad fiirsa caalamiyan wide screen way u qalbaan waxyaabaha ka dhaca Mexico kaleeto waxaan dhici karta in wariyaasha qaarkood ay daba galaan arrimo dhibaato weyn dalkooda ku hayo la hartay haraadi ka dhigi maafiyo tuugo dadku shaqaysi bini aadan slavery oo maarta Ameerika u gudbinteeda daraagis siyaasadii naftirkeedii beerida tabcideedii gudbinteedii macnaha dana aad u fara badan oo aan la koobi karin ayaa ka jira saxaafaddu marka qiiray leedahay dadkay u shaqaysaa wax dan uga ay soo saari kartaa waxay noqonaysaa marka duuliye dhintay passenger wada waa mustaxiq u yahay in la xuso laakiin markaad fiirisid wadamada carabta oo kaleeto markaad fiirisid waa dad mawaali iskaga Sacuudi oo kaleeto Masar oo kaleeto hadda wariyaa dhinto la dilo si xun loo galay hal saxafi oo carba أما رئيات رقم مارتي مسافين العرب أما السعودية أما عرب أردن وحكا هذلي ونكاس كذا فوش حن الدواء لماذا اللودي مجرد تمرك ورياشة محل قدرايا ورياشة وحقو في الدولة دول كريه قفلن وحي كلا توقصوا دعا كما هرلان مركز أسود ديجت أفريقيا أو كلاتون ده مدحض أفريقيا إن جنرال وحي كسمين عذر أسأل كلي عقل له وزيرك أسأل كلي وحباين كره حكون جعيل إلا يقفل بالجديد وجوجي لوقت دينايو قوانين الاستبداد كواكب وكلام مركب في سبوكيسة نيك ودن كيستان لو ودن نقنايا سلو
loogu dhiirigeliyo loogu raaligeliyo raalli laga yahay xataa isaga indhaha laga tiraayo waxba loo sheegayn ugu dambeyn marka wadamada burburka qabsatay sida Soomaaliya oo kaleeto kasoo Ciraaq Syria Afghanistan oo kaleeto inaan number 1 ka sii galno ciladeeda leedahay marka guud ahaan fiirino kow akhyaartii waaweyneed akhyaar weyn oo la dilay ma hay ila taa oo badan oo saxaafadii hor ka shaqeyn jiray ama bas miisaan ku leh wuxuu sheegay kala garanay dibku ugu weyn ee jira wuxuu yahay maanta hebel waxaan ku dhigay maartay qabqab hebel waxaan ku sameeyay maartay inta qabqablaha marka soo rooto wuxuu diyaar u ahaa inuu qaatiliya in ma aragtay qof iska laba reer oo diranayo oo waxay ku dirayaan xataa ka qarsoon tahay hatta oo mid iska fuush oo runa ka marka waxaad aaminsan tahay shaqada ay hayaan in loo beegsanayo loo beegsanayo naftirkooda inay qayb ka yihiin watahay wixii ka dhaca qaldada oo soo laaban doonaa waxaan siinayaa Farax Cabdi Warsame Farxabi Farax adiga aragtidaada guud ahaan suxufiyiinta caalamka maxaa sababa oo keeni kara in qof suxufi ah oo saxaafad ka shaqeeya oo aan hubaysnayn oo in xog uu gaarsiiyo bulshada qaybahaayada kala duwan ka shaqeeya in la beegsado waxyaabaha sababi kara maxaa kamid ah bismillaahi waa mahadsantahay Ismaaciil iyo guud ahaan telefishinka Kalsan oo aanu maanta martida u nahay su'aashaasna waa su'aal qurux badan oo dabcan dadka oo dhan baa maskaxdooda ka dhex guuxaysa waana run oo waxaan isla xaqiiqsanahay in wariyaal 5 sano ama 10 sano u dambeeyay Soomaaliya ay aad uga la'aanayaan wariyaasho wax kastaba ha sababsadeen sida la sheegay waxaan isla waafaqsanahay oo aan dhexda oolin oo qof kastoo la weydiiyo maxaan ku yiraahdaa jawaabtiisu ay safka hore ka tahay inuu horta wariyuhu sababsado mihnada asagu hayo oo aan u arkayno inay ka qatarsan tahay ama ka nooc duwan tahay mihnadaha caalamiga sida tusaale kale ninka hada wasaaradda caafimaadka ka shaqeeya ama wasaaradda waxbarashada ka shaqeeya ama wasaaradda dhakhtarka ka dhaqan xeyndaab wuxuu ku jiraa wasaaraddaas waxbarashada iyo awaamiirheedu ku wareegsanaya wasaaradda caafimaadku sidoo kale waa nin caafimaadkaas maanta ku noqnoqonayo laakiin wariyuhu waa ka mihnad duwan yahay oo subax wuxuu u shaqo tagayaa wasaaradda caafimaadka subax wasaaradda gaashaandhigga subax wasaaradda waxbarashada subax waa nin ku dhex jira shaqo kasta oo bulshadu ay leedahay shaqo kasta oo ay bulshadu leedahay nin faraha kula jira weey oo maxaan ku yiraahdaa waa aaladan waxa loogu aqoonsanaaday in la yiraahdo aalada koowaad ama xoogga afraad iyo saddexaad miya oo dunida markii xoogga dunida la fiirsho dhinaca military iyo siyaasadda inay noqotay aalada saddexaad oo dunida ugu xoogga awoodda afraad waxa loogu bixiyay waa sababtaas weey wariyuhu marka sidaa darteed waa nin soo saara waxa qarsoon waa nin ku mashquula siyaasadaha isdiidan falaqaynteeda waa nin daba dhigta sida oo maxaan ku yiraahdaa Cabdi Walaalkay u sheegay wixii wadanka markaas aan dani ugu jirin waa nin ka hortaga oo baaris ku sameeya musuqmaasuqyada waa nin maxaan ku yiraahdaa sida aan sheegay tallaabo kasta oo wadanka uu qaadayo si dhow ula socdo sida darteed markaan u soo noqono waxyaalaha marka nafsadiisa khatarta gelin kara oo lagu dili karo oo saan u sheegnay musuqmaasuq oo kala tusaale ka soo qaad ninka wax musuqmaasuqay ma uu rabo wariyuhu inuu ogaado ama bulshada inteeda kale waayo waxa soo dhawaanaysa qabashadiisa iyo maxkamadayntiisa waa inuu wariyaha iska reebaa marka ninka dagaalka maxaan ku yiraahdaa siyaasadaha isdiidan oo wadanka isku hay ninkaana wuxuu jeclaysanayaa inuu asagu wariyaha la safto ninkaana wuxuu jeclaysanayaa inuu asaga la safto dhexdooda wuu ku dhumayaa marka wariyihii hadduu kan u exdana kana dilaya hadduu kan u exdana kana dilaya sidoo kaleeto gaangiska nimanka la yiraahdo oo wax boobka iyo dhaca oo burcada abaabulana ma ogolo wariyuhu inuu iftiimiyo toosh ku shido maalmahan hadda waxaan arkaynaa in wariyaashu soo bandhigayaan tuugal qabtay inay sawirayaan inay soo bandhig warbixin ka sameysnaan tuugu marka raalli kama aha in la baahiyo oo maxaan ku yiraahdaa la bandhigo sidaa darteed wax kasta oo qasti leh wax kasta oo qasti qarsoon leh ninka soo bandhigaya waa khasab inay tooganayaan
وقسم إن إسكاب عناية وقسم إن الدلها سيدا درتين ونرضحينا ونأجنهي إنه وريوه حرفت كستو ياهي أما قونت سكستو جالس سنتاي لكن نمبر 1 إنه تهاي إنه قد لايو حرفت ديس يعني مهنة ديس الشقاء إنه قد لايو ونأجنه لكن هل بان سلاي هاي سي بي تشي وأي كدب دكت إن كستو حقيقة إنه قد له هاي لكن الصومالي إن نمبر 1 sanadadii 2010kii iyo 11kii sanadadii 2009kii 2012 ugu badnaa oo mareena yaa ugu badnaa 18 wariye la dilay sanadkaas gudihiisa dhimatay waa la isdhihi karay safka hore ayaan uga jirnay laakiin 17kii iyo 18kan aanad ku jiran dabayaaqadiisii iyo 16kii iyo waxaad moodaa in xoogaa ay hakad galeen oo hal wariye hadda sanadkan hal wariye saddex wariye sanadkan lagu dilay Soomaaliya sanadkan saddex wariye waa sahay hal nin baa hadda dambe ceelasha lagu dilay marka Afghanistan sanadii 17ka dabayaaqadeedii ma 18kan 10 wariye hal meel qarax ku dhintay qarax ku dhintay oo ismiidaaman ku dhintay dawladda waxaa jirta oo maxaan ku yiraahdaa aan la soo shaacbixin oo laakiin se maalin kastaba wariye oo ku dhinto ama si xiran sidaas hadda waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa Israa'iil iyo Falastiin wariyaasha maxaan ku yiraahdaa badanaa waa ku dhintaan maxaan ku yiraahdaa ama waa ku dhaawacma xariga iyo jirdilka maxaan ku yiraahdaa maadaama Ismaaciil su'aashuna wadiiyay dilka ay ahayd laakiin se tacadiya waxaa jira dilka ka foolxun wariyaha shaqadiisa ka taga oo waxaan ka hadlaynaa guud ahaan tacadiyada ama ha ahaado dil ha ahaado jirdil shaqada oo loo diido qalabka ama agabka ay isticmaalayaan oo laga burburiyo qayb kasto kamid ah tacadi waa runtiis kalmada tacadi hadii la yiraahdo ما سو كوبي كرنو هذا طبعا إن الضاد ونلقى إلا 6 ساعات نلقى وايو عج جوجلين تو تعدي حنت ترد وتعدي عج جوجلين تو تعدي إن ما عنده واحد عضي ينوريان مال لغيري حافظ وين وحافظ هذا وصل وضن كم ده إن محنكر هذا كودي الصبح نما إلا ما محنكر هذا تضبط الظهر نما أما كودي تضبط الصبح نما إلا كودي الظهر نما عندهنا أنت حافظ بيحوي لحساعدات مرة واحد إلى 10 ساعات إنه فديان مرة أن عيدا نسكع عيرسنها يا دي وضد هذا سمراي مرة هذا الدلك وسوى بكي جوينا بس كده نوع وكي كحيوي قحوا النمبر كي صدق هذا ونك شغل سكت جاي أما وضم قح عم بقى هاي سقراح سكجع جه ومحن كيرا تعدية ده تعدية غير بان يا وحيهن كون أنشيء إنه نفسين كلا جل يغف أنت ما يلا فريسيو من المضحى عن بسوته سن ولي أما الشركة اللي كتير لا تبره محن كيرا ده توساق صلاة بالانس ده وريه حلقة ولا جارين حلقة سؤال الجارين إن محن كيرا اللي يراه أرض ما بتلا أفلقات ده أقدر اللي يراه محن كيرا ده وحنا عن تعليم ترهين أما ساعة محن كيرا ده ومحن كيرا تعدي ده يرى كان له بكان سعد كان لنا أسكوا ضمنه أيه كم بديهين أرجو أسكسو كوبينا لما جاري كرر تعدي هدي اللي يراه ما أنت لكن سن نمبر 1 وحقه إن لو دلو أو صدق تعدي كستأنه يقول عن حوش وهاي وإلهي بدأ إلهي قصب دقة واتاي أضد مع سنتاي فرح دقيستي هدي أتضد نقصب بيرتي وحداوني سا برنامج كديرة كرسن تلفزيون كرسن تضبط كان عن ديرة سيجارة هو صار إنه بل تعدية اللي باتوين كلو جيستو صحفيين تا عالم كجودهان جارهان نقوى الصوماليات يدو لبض بيشن نوفمبر سنة كستا loo asteeyay munaasabad weyn oo lagu talagalay oo magaceeda la yiraahdo maalinta caalamiga ah ee dhameynta xadgudubyada ka dhanka ah loo geysto suxufiyiinta ee aan la xisaabtamin marka Soomaaliya marka laga hadlayo xagga dhibaatada suxufiyiinta haysata waxa u sii dheer waxa loo yaqaano la xisaabtamid la'aan waxaan Ingiriiska ama afka qalaad lagu yiraahdo impunity-ga waayo qofka jooga dalal kale waxa laga yaabaa hadii dhibaato ama tacaddi loo geysto in qofkii la soo qabto oo cadaalad la hor keeno marka ma oran karnaa sababta Soomaaliya kaalinta koowaad loo siiyay waxa ay tahay la xisaabtamid la'aan tacaddiyada ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed tusaale u soo qaadano laga soo bilaabo 1992 oo gabadhii Talyaaniga ahayd Alaria Alpi lagu dilay Soomaaliya ilaa iyo 2018 oo hadda aan ku sugannahay tacadiyada way socdaan sanadkan hadda aan ku jirno
wariyihii saddexaada la dilay hadda inta aan ka warhayno laba wariye mid muqdisho lagu dilay iyo mid lagu dilay ceelasha biyaha oo dowladka muqdisho ah iyo mid gaalkacyo toorey lagu dilay saddexdaasba marka dib u fiirino ilaa ku dhawaad 70 wariye ayaa lagu dilay CPJ waxay diiwaan gelisay 64 suxufi in Soomaaliya lagu dilay si ku talagal ah loo dilay marka inta badan lama soo qabto oo cadaaladda lama hor keeno dadkii ka dambeeyay tacadiyada loo geystay suxufiyiinta marka ma oran karnaa sababta Soomaaliya kaalinta koowaad loo siiyay in ay tahay in institutionadii ama hay'adihii ku shaqada lahaa in marka dambiga uu dhaco inay ka daba tagaan oo qofkii dambiga geystay ay soo qabtaan ay cadaaladda hor keenaan oo aan shaqaynayn oo suxufigii ninkii dilay laga yaabo ama qofkii dilay inuu wadada iska laafiyoonayo bari mid kale uu dili karo aan la soo qabanin haddaan soo u soo qaadano bishii 6aad ee sanadkan waa bishii 7aad aan iraahdo 26keedii wariye Soomaaliyeed oo cameraman u shaqeynaya telefishinka SBS ayaa lagu dilay meel checkpoint ah oo nin booliis taagnaa ayaa dilay xabad ku dhuftay kadibna wuu baxsaday ilaa iyo hadda oo November aan ku jirno lama soo qaban askarigii ka tirsanaa booliiska Soomaaliyeed ee degmada Xamarjab ku dilay suxufigaas dhalinyarada ahaa cadaaladda lama horkeenin lamana soo qaban xitaa lama soo xirin marka arrimahaas ayaa u sababa ma la oran karaa in Soomaaliya kaalinta koowaad ay ka gasho maadaama xisaabtan uusan jirin waxaan siinahay Idris waxaa ka sii daran iyadoo main pointiga bay tahay aqoon baaban jirinba ninkan askariga ah qofkan shacbiga ah inuu saxaafadda u adeegaysa asaga ninkan askariga ah inuu iska ilaaliyo inuu kamaradaas iyo dadkeeta iyo saxaafadda iska ilaaliyo uu nidaam iyo sharaf iyo xaq iyo xuquuq u leeyahay isaga shaqadu hay shaqo ka dara soo wax u ilaalinayo orientation laguma siiyo shacbigiina ma difaacan karaan oo kama diirayaan waxay uga diireen isdilkii dhexdeena hay ugu haystaan qofkan inuu shaqo saami oo sharaf loo mihnada u wado lama saddex ilaa ay hadda meel kasta ay wax ka dhacaan waxa ugu sii farxan markii la askarigii dawladdu la bisan baa waxday markii way ka kharaar badan tahay la garnayn markii la leeyahay haddana aan la soo qaban labo waxaa suurtagal ah in arrinta naftirkeedaba in saxaafaddu ay iska tahay aqoon inaysan ayaga in la isku qancinayo darada asaga laha askarigu sawirayay ama meel wax ka dhacayaan uu sawirayay inuu sawiro oo dabada ka geliyo sida asaga tuuga duarka xabad inuu ku dhufto waajib u leeyahay wariyana kamaradaas inuu ku dirirayo kula dirirayo soo bandhigayo lama horta aqoon ma jirto dadkina kama jirto ciidankina kama jirto saddex wariyihii naftirkiisa waxa laga yaabaa in uusan kii hore wuxuu ku dhacay wax ku qaadanayn dawlad maxaalis galis wariyaasha in xabadda ay iskaga socoto oo siyaasadda sida noqoto faaraxiri ama ha noqoto ku talagal berbees wala noqoto waxaa ku talagal aydan noqotay inaanan looba raacin qofna haddii la dabageli lahaa oo wariyihii ninkii dilay wariyaha oo ciidanka ah ninkii dilay wariyaha oo saas ah oo qaabkaas ku dilay wuxuu hadii justification lahayn arrintan ma dhacdeen Soomaaliya marka waxa laga yaabaa maalin kaliya faarax shay in 10 dhimat hal maalin 10 kama dhimo sanadkan dhanba kama dhiman xataa haddana koob maxaa loo gelinaya 10 kaas dhimatay negligence inay tahay laga yaabaa ka soo qaadeen qarax u ahaa oo aan maaragtay ujeedo toos ay keenay siyaasadahan doorashada la diiday wax ku wajahan wariyaha jirta iyo wax ku wajahan system ku wajahan ugu dhawi laakiin mid anaga noo taala waxay tahay kii ay u shaqeynayeen ma tababarayo oo saxaafadda intii la rabay da'da way yartahay dhibaateedii kii loo shaqeynayay ee hadda 10 saac oo kale wariye meel iskaga xirtay haddana aflagadnaa kala taga dhahay akhlaaq darro tacadiyada ku dhacay kamid yihiin saddex gabdhaha waa sii nugul yihiin haday saxaafad siin xataa ixtiraamka la siinay markii caadiga tahay in la siinayaa moodaa oo hadda ku yiriin gabdhii laakiin soo dub Ismaaciil dhibaatada ugu weynaysta waxay tahay dalkeena xataa musuqmaasuq kama jiro taanu aaminsanahay dhaca ka jira musuqmaasuq cilmi raba ya qalb iyo bangi iyo adu raba kan waxa way saaka wasaaradana lii dhiibaya
waxaan rabaan sameynaya wixii haddii la sheego nin wax dhacay waa nin geel dhacay kamid wada siyaasiyiinteen waxa musuqmaasuq annaka waa iskaleena ku abgobaadsannahay horta wax booba wadankeena ka jira nin wax boobay ma ku daynayo marka ma ku dayn waa boobkaas uu sameystay ii sheegtay wuxuu haystaa wuxuu kugu dilaa miinisku haystaa uu leeyahay iga soo aamusi hebel taasna waa jirtaayo dad musuqmaasuq baaraya inay isu qaataan maan horta waa inay isu qaataan burcad inay la shaqaynayaan oo wax boobis waa tahay farax baan siinaya farax markaan ka hadalno in soomaaliya kaalinta koowaad ay gashay meelaha tacadiyada ugu badan loo geysto suxufiyiinta caalamka ma la oran karaa waxaa ugu sababa la xisaabtamid la-aanta dadkii dhibaatada u geystay suxufiyiinta oo dalka ka jirta oo haddii lasoo qaban lahaa qofkii dhibaato geystay oo sharci la horkeeni lahaa kaalinta koowaad soomaaliya lama siin lahayn ma la dhihi karaa numberka iyo maxaan ku yidhaahday sidaad hadda ismaaciil noo fahamsiisay anigu markaan lahaa soomaaliya xoogaa tiradaas waa la badiyey waxaan ka hadlaya waxa weye waa numberka laakiin xagga cadaaladda markay noqoto waa run oo number 1 waa ka jirnaa waa uga jirnaa waayo weli ma dhicinin manaanan arkin weriye si kastaba ha loogu xadgudbe waa iska soo koobayna dil jirdil xarig maxaan ku idhahdaa hanjabaad wixii dhan waa isku soo wadaduubayna tacaddi nooc kasta ha ahaado inta weriye loo geystay qofkii u geystay sharci la soo taagay kiiskii xasan yuusuf absuga keliya aan u malaynayaa iyo sidoo kale marka laba kiis camal waxaa la yaqaan ku dhawaad 70 camal ha taas naftirkeedana gabadhii waxyaalaha noocaasaa jiray 70 kiis oo saddex ugu badan iyadana markaas ayadaa waxay u dhacaysay qaab oo ah maxaan ku idhahdaa laba faction laba maxaan ku idhahdaa xoogo dawladda iska soo horjeeday oo markii hore israadsanayay marka ninkii ii keenay waxaan rabay midkaan kale tuutaha qabo kan booliska ah oo dili ahay keenay ahay taas marka taasaa maxaan ku idhahdaa xoogaa ma noqonayso taasaan ku keenahay kaas ninaad awalba waxay ahayd toos aad isu falasaartay buu ahaa oo hadda weriye keligiisaan ahayn soomaaliya intii wixii ka soo horjeeda oo dhan ba ugu talagalay inuu maxaan ku idhahdaa adiguna sidoo kale aad ugu talagashay inaad iska celisid waxaa la rabaa marka weriyuhu suu saaxiibkay Cabdiruus u sheegay maba fahamsaninba horta haddaanu Soomaali nahay sideedaba haddaanu Soomaali nahay siyaasigeennu iyo shacabkeennu siyaasigeennu waxaa laga yaabaa wariyahaba inay is arkaan asaga markuu war haayo maalintaas oo propaganda uu rabo inuu ku shubto unbu u yeeranaya weliba hadda waxaa soo ifbaxday wax la leeyahay no question oo macnaheedu tahay shil jireed oo su'aal lahayn diinka shiljireed oo su'aal lahayn macnaha waxa way afarta kelmadood aan ku siisay tahay u sii daa hor igana tag yaa hadda soo baxday waa one of the تعدي ومد كم تعدي هذا واحد كان سؤالي كده واحد حتى واحد أقول نقول يسمع محنك ولا لا يستعمل ها أنا أنت وش بتأخذ الأرض أنت سيدا الشرعي مركب ما يشرو ولي محنك إرادة كفارة قاضي أما محنك إرادة نيت السيء أما wax loo dhimay keenay Soomaaliya wali kama dhicinin maxaan ku yiraahdaa saxafi dhibaatada loo geystay maxaan ku yiraahdaa laga dhayay wali Soomaaliya kama dhicinin intaanu dhimasho iyo dhaawac iyo qax iyo maxaan ku yiraahdaa aragnay wali ma aysan dhicinin in maxaan ku yiraahdaa ama maanan aragnin dad inta saxaafad qortay shaqo siiyay tii ayagoo ay la yimaadeen oo iyagu si kastaba ha ku heleen wayo wax lagu dhibaateynayo ogow qofku markuu asaga shaqo ku siiyo haddii shaqadaas darteed dhibaato kugu soo gaarto waxaad uga maarmi kartaa oo abaal aad uga dhigi kartaa in shaqadan markii hore lagu siiyey oo maxaan ku yiraahdaa meeshaas bariiskaaga uu fuulay lagu qiimeeyey si kastaba ha ahaatee ma jirto welina ma aanan arag tacaddi wariye loo geystay oo intay maxaan ku yiraahdaa maxkamad ama saldhig ama dawladda
u tafaxaydatay wariyahaas xuquuqdiisii meesha soo saartay laakiin waxaan aragnaa suxufiyiin la soo qabqabtay oo maxkamadda la geeyey waan aragnaa midaan soo socdo waxaa fiican marka midaan usoo socdo ismaaciil baa ga bogan waxaa fiican baa rabay marka inaa idhaahdo maadaama aadan xaqiisa raadinaynin oo uusan ku jirinin ummadaad u tahay madaxda oo uusan ku jirinin dadkaad maxkamadooda hayso oo uusan ku jirinin dadkaad xuquuqdiisa haysato ha ku qabsanin marka asna wuxuu la yimaado asna wuxuu la yimaado oo maxaan ku idhaha ama qaladaadka ka dhaca inkastuu yahay nin tababaran inkastuu yahay nin hawshiisa yaqaana laakiinse hadduu maalintaada kugu soo jiirayo musuq maasuqaaga sheegay hadduu meesha dawladda maxaan ku idhahdaa dhaliilaheeda uu sheegay hadduu meesha ka habacsanan tahay dawladdu sheegay ha u qabsan walowba waa asagu hadalkiisa uu yahay wax toosin ha u qabsan waayo saxaafaddu dadka hubaysan kuma jirto dad hubaysan ma aha waa dad qalin mikrofon wata wey labada wax lagu saxay wataan labadaas wax lagu saxay qofka watana casharka uu ku siiyay inaad taqaadatid maxaan ku camal fashid baadiga ku hortaale inaad wax u dhintay iska daay marka waxaan leeyahay madaxdeena iyo dawladdeena iyo shacabkeena iyo mucaaradkeena iyo ku-xoogageenna ishayowba dhammaantiinba iyadoo ay soo dhowdahay maxaan ku idhahdaa labadii November oo ahayd maalintii xuquuqda tacaddi ka hortagista tacaddiga saxafiga ilaahay hana garansiiyo inaanu saxaafadda intaan fahamno ay tahay saxaafaddu dukaan qof walbaba u furan bar u fiirso telefishinka Kalsan aanu maanta fadhino ka hadlayno qof kasta oo Soomaaliya waa u furan inuu aaraadiisa ku dhiibto inuu maxaan ku idhaahdaa xogta rabana ka helo keeno ku xayeysiisto dharku keeno ku xayeysiisto waxa wadanka dhibayo fikir aad ula timaadid oo ay ku gudbiso in wixii maxaan ku idhaahdaa siyaadadaada oo wanaagaaga wadankaaga wanaag u ah inaad u sheegato mikrofoonka iyo kaamaradu waxay u furan yihiin qof kasta oo Soomaaliya intaas haddaanu fahmi lahayn waxaa jira raaci ugu jabtaa markaan arko kaba soo qaad Falastiin iyo Israa'iil oo dagaalamaya wariyuhu laba dhexdooda kaamarada ku dhex jira ninkaana wuu ammaan gelinaya waxaa fahmay maxaan ku dunida ayadoo maxaan ku banaan baxyo jiraan buu wariyihii la dhex taagan yahay ninka banaan baxyada difaacayo oo ah askariga budka iyo wata gaashaanka ama maxaan ku raadaya gas tirka isticmaalaya ama maxaan ku wariyaha lama hadlayo shacabkuna lama hadlayo idan waxaad fahmaysaa in doorkiisa la og yahay banaan yahay doorkiisa la yaqaan maanta wixii meeshaas ka dhacay iyo ninkaas soo duubay in dad weynuna banaan baxayeen booliskana uu reebreebayo oo nabadda sugay waa laba ujeedo way ninkaana banaan bixiisa wuxuu ku salaysnaa wariyuhu uu soo bandhigay ciidamada ammaanka sugayeen ayuu soo bandhigay labadaba dhexdhexaad buu yahay marka laakiin haddii dadweynuhu yidhahdaan wareer maxaad askariga u duubaysaa waa wareer oo madax jabsha askarigu inuu yidhahdo maxaa wareer banaan baxayaasha u duubaysaa oo madax jabsha waa wareer wey lama fahmin markaas halaan ku darsado marka waxaa la yaabaa Nixon markii ku xumayd arrinta wuxuu sir madaxweynihii hore Mareykanka kuuri aad u sir xogaa fikirka rarcaanka xogaa ceebtii wadankiisa Bob Woodward kaala Brishtin bil ka hor ayuu qaabilay waasaas ku qaabilay waraysi u siiyay weyn u siiyay laba hal saac ibar lahaa waxaa markay addi ku eedeysay su'aalihii rabay inuu ka adkaaday madaxweynaha ugu rabo qariyay ciilka ay ku qabay markaas oo kuuri aaday garoonka soo galeen madaxweyne waxaan ku weydiin rakaal Brishtin kaas fiiri wuxuu yiri sootaan waa taas ku qaabilay hawl ugu qaabilay laakiin laba su'aal kale ku weydiinna ay mar walba waa iska dhaha firaaq umheynir waa runtii sir madaxweynaha wuu diin mogtahay laakiin madaxweyne ay wuxuu qeylay tuug markuu arko waxaa saxaafad macnaha madaxweynaha baan dhibaato geysanayn askartu san dhibaato waa isku torturaya inuu yiraahdo marka madaxweyne waa runta ay waa qeylaya laakiin wuxuu qeylay goortii tuug arko runuu sheegay madaxweynaha oo madaxweyne waxba sameyn karin nabadsuguda waxba sameyn institutionada ka dhigay labo hadda maanta la joogo waxa ugu weyn madaxweynaha Ameerika tadliilka uu sameeyay iyo qashog waa wariye tacdiidii ka qamtay in uu intii la rabo inuu difaac mujrim والأحد يا مدعويني مركز أي واشنطن بوست نيكي إسكالها وصدق بقولوا $1,000,000 مال قلنا كان عسي يضافوا الصحراء كلها إنه إيمانه تضبع كجرت مركب ريال وين اللي قانوا كل مسكود اللي قانوا سيكدب
maalgelintaasna waa ku leenahay shaqada hal markaa iga tegayna New York Times aan tegayna ama Los Angeles Tribune aan tegayna maxaa dhacay ninkan kolom ku lahaa ilaa aan cadaalad helayna ma aamuseen farqo ka qab waa ninkii iska leh madaxweynaha hadda waxaa la taagan yahay saddex arrimood oo meel saari waayo Congress-kan rajo ka sugayna saxaafadda inay saa u shaqeynayso u hiilinayso qofkeeda wax aan anaka teena ka sugayna ma saddextan ugu adag oo ugu yaabka badan marka qofka fiirsan ay tahay caruur iyo dad iyo ilmo iyo masaakiin iyo xaasadada waxa la dilay daba socdo wali ma haynaa wariyaal iyo inuu wax soo ururiyaan ma ogiye ilaa dawladda ilaa bicmushtarki ilaa dareen loo yeeshay dadkaasoo la yiraahdo wareera meeshaas ninkii u socday ku dhintay ama aabihu iyo wiilkooda dhintay oo reerkaas la gaarsiiyey in awal celin qofkii lama abuuri kara laakiin lala safto oo loo tago tacsiis la tago geeriis la tago oo dhaqaale inta loo ururiyo ilmahaas la ogaado oo saxafigii dhintay caruurtiisa waxaa meel saartay dadka noocaas oo faacil khayrka ah بس الكاس ما خدنا مركا قلت وحوي وجندل مكتول ها فهم ذات أدبد ما سنتين داوديال هدي أد هذا نقص بيرتين ولي واحد داون إنسان برنامج كديرة كلسن التلفزيون كعالمي كلسن تي في أو تضبط كان عن كو إيجي إنه أما كو قاعدة إنه بل تعدية لو جيستو صحفيين تا عالم كجارهنا كو الصوماليات إذا وصلت كان صوماليا أي كارنت كوات كجشي meelaha tacadiyada ugu badan loo geysto suxufiyiinta barnaamijka waxa igala qayb galaya Aydruus Maxamed Cabdi Afsagaaro oo ah gudoomiyaha hay'adda Media for Peace iyo sidoo kale suxufi Farax Cabdi Warsame Farax AP oo isagana ah suxufi ruucada Soomaaliyeed dib baan ugu laabanaynaa su'aalaha dadka qaarkood wax dhaliila waxay sheegaan in suxufiyiinta ay yihiin kuwa aan lahayn aqoontii loogu talagalay ee mihnadeed taasina ay keenayso in khaladaad badan ay ku kacaan oo ka dhalanaya aqoon darrada haysata dhinaca saxaafadda taasoo aakhiritaanka sababta in dil loo geysto suxufiga ama laga arguto wal aragtidaada Faarax dadka ku doodaya in suxufiyiinta aqoon darrada haysata awgeed ay ku sababayso in dhibaatooyin loo geysto waa maasantahay Ismaaciil Sheekh Khalifa horta waa run wax kastoo la sheegana waxba ka jira sida doctor Ismaaciil oo wariyaasheenu 30 ku dhawaadka sano oo wadankeena burbursanaa ayaa iyaguna la burbureen haddii ahaan lahayd aqoon iyo haddii ahaan lahayd maxaan ku idhaahdaa garaad qofka bini aadamka ahi qalinka iyo buugga kaliya garaadkiisu ma soo jooga waxaa jirta nimanka nabadoonnada iyo ugaasida la yiraahdo iskool maysan gelin laakiin garaad ku filan iyo maskax ku filan iyo waayo soo joog iyo waayo arag ay waxyaalo badan u noqdeen suxuufigii mar haddii waxbarashadiisiina aysan mid adduunyadu ay maanta maraysa uusan waddankiisii ka jirin garaad asaga ku filanna uu noqday qori iyo iyadoo la isdilay iyo iyadoo beelihii lala kala safan yahay oo ku dhex garaadsaday waad garan kartaa halkaas inaan nacfi fara badan ka soo socoto hase yeeshee waxyaalahan sida gaarka aan ugu faanaya ama si aan ugu doodayo wariyahayga waxa weeye oo aan mar walbaba sheega asagoo sidaasa inuusan haddana ahayn urur hubaysan oo qori aaka iyo garabka inuusan ta u saarnayn oo dad dilaya oo uusan dad dilaynin uu maxaan ku idhaahdaa shaqadiisa ay tahay mid ah inuu hadlo hadalkiisuna 90% wixii cilmi darro iyo caqli darro iyo xirfad darro iyo xirfadaano maxaan ku idhaahdaa aqoon badan u baahan oo uusan aqoonteeda weli ayadoon meeshii la rabay uusan sagxadda soo taaban oo uu ku dhexdhacay ku soo dhexdhacay darteed inay wax ka fakadaan ama qaladaad ka dhaco way sababi kartaa oo taas waxa weeye fuleexantiisa ma moogo way nagu jiraan dad dhawaan saxaafadda ku soo biiray way nagu jiraan dad maxaan ku idhaahdaa xoogaa beesha uu ka soo jeeda jeclaan lahaa inay maxaan ku idhaahdaa ugu sarreysa dadka way nagu jiraan in maxaan ku idhaahdaa nin busaarsan oo xun iska way nagu jiraan nin aqoontiisii iyo garaadkiisii uu yar yahay way nagu jiraan nin da'diisu yar tahay laakiin magaciisu waa wariye shaqadiisuna ma ahan mid dhiig daadinaysa
ومد هذا يقول بدأ دليل يوحسد كوس على السنوات وأجيها وريه ملايين روح إني تعاون السمانت وحو تعليها ملايين كاس روح ما أنت إني أسجد دقيستان إسلام مركزنا وأنا أحسن ودكتي سكوشوا يكوقعان وهو إسماعيل شغاليفة وقدم بس هذا الكيسي إن اللي قد له وحنوصل الصعداء مركز دلكو وعنقابته قدام بيسقف بني آدم الله مريء ها دل لقول لك أقوي هدل لقول رباحية هدل شانس لقول حقول ولي وحبا كاسو حرك لكن دلكو وحوي عنقاب قفل مريء مد قدام بيسوي ولي مركب ما إيمانن استاهل إن الدلوريها استاهل كيسو إنه دل نقضه كم أصلا بيخسرن ولي وريهم موسن قارن هذا للدلو وحن قد لبوسن كين وهي سيدان أقولنا هاي دلكو صدح سببات بو يكوي ماذا نرك قفل الدلاية تقفكو محنكو هذا وين النقطة هي نروح ردو دين تكبحي وين النقطة قفكو نف جويسي وهذا لا قصاصة هي إنه النقطة محنكو هذا زاني محسن قول صبري ها وريه أنت قاعد كل اللي أصلا تيرك القصة حريم ما دعنا وريه محنكو أنت ردو دين تكبحي تيرك القصة حرنا ما يسند دعنا وحين أنت أسقصه سكية إن وريه اللي ودي له معها كول الدلي محكمة ملقية لفتي هذا لما محكمة ملقية ما بقى مسوي قولك سوس الصعداء ما شغال سوس الصعداء مساجد القصة بحي يا جولة كي قدام بهذا محنكو هذا مساجد القصة بحي علاش بيه سوق صباح يا اللي تري ترى فرصة مركب وحوية ولما مركز عنقاب waxaad leedahay kama dhalanayso dil kama dhalanayo عنقاب dil ku timaad dhibaato dil sabab عنقابteedu dil tahay wali wariye ma geysanin marka waa tacaadiyal yar waxa awood sheegasho waa awood sheegasho iyo ku joog faris weey waa tafarax inaan hubaysanayn baa maanta waa ku soo laaban doonaa waxa siinaya Idris adiga aragtidaada dadka sabab uga dhigaya macna in wariyaasha sababta loo dilay ay tahay aqoon darro iyo qaladaad ka dhaca sida awgeedna dadkii qaladaadkaas tirsanayay ay dilaan suxufiyiinta arintaas aragtidaada weyn oo waliba marka la maamula jira marka la leeyahay qayb weyn ku leeyahay in hatta anagu waan ugu yiriyaa taxqiiqaad ama maartay soo fajinta isbitaal waxa la yiraahdo oo wariye inta la dilay wuxuu lagu dilay wariye kale intuu daba gala soo bandhiga baaritaan ku sameeyo maba aanan u gudbinba oo inaan burcad wax disho daba gali karno warar caadi ah lagu dilayaa may gaarin runtii waa nasiib darro weyn oo jirta in warka xataa xanaftiisa xataa wariye aan baqayn maba jira aanu qabaa horta marka laga hadlayo dhibka ugu weyn oo jira marka waxay tahay runtii faraxaya in wariye mustaxiq u noqday shuruudii wax lagu dilay markii saddexdaas laga yimaado xataa insaan ahaan qofkan tacaatufka qofka Soomaaliga u yeelan karo iyo meel ka dhac waxay ku tahay inuu ku dhiirado aaba ama wiil reer ka soo toosay saakay inuu ku dilo saablaan soo iska socda xataa walwal waa lagu dilayaa qaba isagoon lahayn laba waxa meesha ka marnay haddana in annagina aanan isu wiilinayn maanta haddii Faarax gaaraan Idris wax gaaraan ina iga hartaan ma waa wuxuu lagu dilay Idris waa inuu maalin yeeshaa waa inta xataa taala aan yeelanaa la yiraahdo maartay ee taalada suxufiyiintii la dilay ilaan jirka daasoonba waa jirtaa dhaqaatiir waa jiraa waa nin General Daawud waa aragnay Said Maxamed waa aragnay waxaa noo diiday in xataa aanu ooyi karno maalintii wax la dilay horta saaf taaladaas iyo goobtaas dhulkaas inta helo meel fagaaro magaalada kamid ah in horta isku nimaad macal caruurtii agoontii dadka laga dilay inta nool dafcad kasta oo duuliyaal wax barato diyaaradaha bixin shaqada wada dafcadaas buuga leedahay ninkii howlgab gala buugi inta kale tikid inta buugaas waa lagu daraa waxa la duuliyo waqtigaas la dhacay kii aad u dambeeyay good la dhacay Indonesia kale waa buugi dafcadiisu ku jira in uusan shaqadii dhameysanin laakiin uu ku dhintay isla mihnada inta ku dhimatay inaan meel u yeelno oo niraahno xusuustii waxay ka qaadan lahayd intii gardarada noocaas galayso may gaarin hormara u sheeg horta in horta ma dhacday mid maxkamad ay dishay ma dhicin ina anaka xataa u sameysana xataa ina maalin xataa aan u sameeyo faqaariya ilaa 10 mitir dhamaad صح ina xataa daljirka daaso
meel ka qaadan SOL mid u taal bal ugu yaraan dadkan dhimanaya maalintaas agoontaas inaan xusno oon dhaana keligiin ma tihin agoontii waagi dadkii waagi inaan xataa isbaritaar leenahay xusuustaas waxbay ka qaadan lahayd ha yeeshee laga wada hadli maayo maanta soddonkaasana wixii dhintay wax oo aanu dib uga sheekeyn karna maaha laakiin midda ugu xun baa waxay tahay qof asaga dhanba shaqadiisu ay tahay qalin ee kamarad in 7 aka loogu bedelo oo guuldarro nagu soo yeynaysa haddii aan markasta ku celcelin maanta waxay wariyaasha iskugu tageen macal buugtood macal awoontood macal ciyaalkood macal kamaradoodii waxay fadhiyaan maanta taaladii ay samaysteen wax badanaa waxay dhiceen lagana sheekeeyo qofkaasaasaay aad waad umaadsantaha Idris su-aashan kale waxay tahay wariyaha waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah run sheeg waxaa ka mid ah dhexdhexaadnimo dadka qaarkood waxay yidhaahdaan wariyaasha Soomaaliyeed waxaa ka maran dhexdhexaadnimada qof qabiilkii ama beeshii uu ka soo jeeday difaacaya u geyfan suxufigii inuu yahay oo qabyaalad ku shaqaynaya oo aan dhexdhexaad ahayn amaba qofkii dhaqaalo siiya ama wax siiya warkiisa un keliya inuu qaato marka in wariyaasha dhexdhexaadnimada ay ka baxayaan oo wararkooda ay tabiyaan mararka qaarkood ay yihiin kuwo dhexdhexaadnimadii iyo sugnaantii aan ku salaysnayn ee rabitaanka wariyaha ama dhaqaalaha la siiyo ama qabyaalad iyo ninjeclaysi inay ku dhaqmaan wararkooda noocaas u tabiyaan taasina ay tahay cillado kale oo horseedi kara in tacaddi loo geysto wariyayaasha ugu dambeyntii la dili karo xitaa taa maxaad uga jawaabaysaa waa run horta jawaabtii Ismaaciilow mar hore aan bixiyay baan ku adkaysanayo weli asbaab sababi karta wariyaha in la dilo intaas weli kuma jirto waayo dilku wax walba ka sareeya inqaab kasta oo adduunkan taalo dilka ayaa ugu sareeya dembi kasta oo ilaahay koonkan korkiisa u keenana inqaab la eg buu leeyahay maalmo bilo sanado ilaa ma sanado si tarbadan jirdil maxaan ku yiraahdaa wax walba inqaab bay leeyahay ganaax dastuur baanu leenahay waxaanu leenahay maxaan ku yiraahdaa dawlad dhisan baan nahay shan ruux meel iskugu timaadaba go'aan iyo maamul bay leedahay institution intiisa la eg bay leedahay saas haddaan sameyn maxaanu ka yeelnaa inqaabtiisu intaas leedahay marka adduunyada cirif min cirif maanta adduunyada ummad jaahiliya ma jirto dawladdu calan laha nahay dembi walbaaba maxaan ku yiraahdaa koodisha binaale wax la yiraahdo waxa jira buug dembiyada maxaan ku yiraahdaa dembi walbaaba inta uu gaarsiisan yahay sharciga madaniga sharciga madaniga marka horta taas waan maxaan ku yiraahdaa waxa jirta dawlad iyo sharci iyo calan iyo ciid baan u leenahay wixii cinqaab oo qofkan la yimaado taas waa taas wax dil leeyahay ma jiraan waxaan ku soo laabanayaa maxaan ku yiraahdaa dhexdhexaadnimada waxaan cadaynayaa anoo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed inay jiraan aqoon darro ama ha sababto ama nin jeclays ha jiro waanu aragnaa wariyo xooga xaqiiqadii warinimada inta ka baxay maxaan ku yiraahdaa cidiisi xirfadii uu yaqaanay oo loogu talagalay inuu Soomaaliya oo dhan iyo wadankiisa ku hormariyo xoogaa beel ahaan la aaday indhaha saarnay social media noo sheegaya fadhi ku darradaan isku aragnaa doodaha ayay debate-ka mar dhex geliyaan baadda ka war waxaan ku yiraahdaa taasna waxa weeye waxaan cod dheer ku leeyahay wariye matiyad mar haddaad xaqiiqadii ka baxday haddaad shuruucdii ka baxday ninka askariga iyo ninka dhakhtarka iyo ninka wariyaha waxaa la sheegaa saddexdaas astaamood ama saddexdaas nin waa dadka marnaba aysan qabiil ka suurtoobi karin waayo macallimiinta isteelo wataa maxaan ku yiraahdaa calanka ummadda u dhaxeeya calankaas iyo ciidaas iyo shacabkiisa ayaa la rabaa inuu difaaco oo cadaawad shaqada ahayd dhakhtarku naf kasta oo go'aysa inuu badbaadiyo ayuu tababarkeeda soo qaatay wariyahana inuu maxaan ku yiraahdaa war nadiif sii daayo aadan u eexan maanta beeshaada haday dukun daakun maxaan ku yiraahdaa laga dhigo oo beel kale oo adiga aan shaqo kulan ay ka dhigto sidoo warkaas yahay inaa u sii deysad way oo talaadad maanta dabada looga dhacay maxaan ku yiraahdaa hadaba sheegaysid hadaba war sheegaysid hadadan ka wad midka runta ah sheeg sidaas lagu jeclaanayo adeecad aad ku noqon kartaa markaas ayaana qaadan kartaa darajadii wariyanimo inta ka horeysa ma qaadan kartaa macallinku waa bare
ها ummadda u dhexeeya wuxuu soo bartay bara weey inaad u gaarsiiyo weey oo risaalu sida waa rasuul waxa la rabaa marka dadku waxba iska ka dhaxyaas marka wariyanimada hadduu xaqiiqada ka baxo wariyanimada oo xayndaabka wariyanimada ka baxo ma kelmadda wariyan ma qaadan karo hadduu warigiis hala taagnaada meelaha ma qaadan karo wixii cinqaaba ku timaadana asay kali u noqonaysaa inkastoo dil iyo in gacan laga gooyo isoo wali heerkaas gaarin xanjafin iyo cinqaab buu leeyahay teeda kale wariyaashana Soomaaliyeed waxaan uga digaa inta ninkaas kalsoonida kala noqdaan haddii la ururaa jira Ismaaciil oo kale gudoomiye uu yahay hadda urur weyn nusaj way jirtaa wasaaradda warfaafinta way jirtaa maxaan ku yiraahdaa in lagala noqdo ruqsadda ayaanu cadaynaynaa ninkaas oo lagala noqdo ruqsadda ama la yiraahdo ninkaas suxufi uu ka baxay nidaamkii la yiraahdo sidoo kaleeto caadaqaata hadduu noqdo anu caadaqaataan u aqaana waxyaalaha shuruurka iyo loo yaqaan laaluushka laaluush ayadan haddaad qaadataa adna wariimada waad ka baxday waayo nin la gatay baa taa markaas oo qofkaas waxaas uu siiyey maanta waayo intaan wax dhaco waxaan ku leeyahay lacagtaan dhacay baad qaar ku siinhayaa idifaac متى مركب ورية بتكسر ورجة ورية نمدي ها وحنا بان دعي أما وربنا نقول مصالح لنا محن هذيك حواك وش بتي ورية نمدي مركب متى أنا إلى من نقط توجي توجي توكل وحجر ضد صحفيين مقع الصحفي أهوته أو لغيها بين إيمانته قف سياسية أما قف dhaqaalaha haysta oo mataqaanaa in ganacsada ah iyo wixii la mid ah intay dacaayadayaan wax ka sheegaan propagandayaan soo fariista social media ama barihii bulshada fadhiya ama warbaahin fadhiya oo ka shaqeynaya ujeedada uu rabana ay tahay in qofkaasi uu lacag siiyo dhaqaale uu ka helo marka soo laba oran karo taas waxay ka mid tahay waa nooc baad iyo burcadnimo ka mid ah oo suxufiyiinta qaar ay sameynayaan waana ku dhex jira haye saxaafadda nafteeda tuuga leedahay qaar culimo iska dhiga arkaysan koofinta ku soo ku dhaw waxa sahlaysan saastadii sicirka waxaas aqli ma tuuga horta ku dhex jirta ma aha saxaafikaas markiisa hore wuxuu ahaa nin maafiya oo inuu ku shaqeysto waxaan damcay saxaafi ma saxaafadii marka sida khaa'in wadanku ugu jiro ayay khaa'iniin ugu dhex jiraan aan saxaafad shaqo ku lahayn meheladna ka dhigtay ilaa mustawa in gaaban bay ku maartay ku gaban karaan gacantay marka dambe waa la dilaa kuwaas intooda badan انت مهمك انت فارح يرؤده marka qeyl ma laha leedahay waa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay toddobaadkan labada bisha November waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee dhamaynta la xisaabtamid la'aanta tacadiyada loo geysto suxufiyiinta idinkoo ka faa'iideysanaya fursadaas maxaad ugu baaqaysaan maamulada ka jira dalka maxaad ugu baaqaysaan suxufiyiinta waxaan ku horeynayaa Faarax ما شاء الله بقول إسماعيل شغله في كل سنة ومهد علينا يا وأنا فرصة خالية وأنا مالنا أنا وصحافة الصومالية هذا أنا السجن ويرنا أنتي وهي مالنا نحن كنا حقوق ذا اللود ذا مالنا نقوم تشرتو وحنا لنا هاي لبدر دارن بان نكون مع السلامين يا برنامج كان ومنه وكسر جودهم بومد الصومالية هذا المرح هذا هاي هي هذا الشعب هاي يوم منه وكسر صاحب ذا ورياش الصومالية waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeena wariyuhu koow waa Soomaali muslim bay leeyahay waana wiilashiini iyo gabdhihiini weeye adinkeena ka farcameen waxayna u shaqeynayaan waa adinka waxay ka qarsoon bay soo sheegaan horumarkiina ka sheekeeyaan caafimaadkiina ka sheekeeyaan warbixintiina ka sheekeeyaan waxbarashadiina ka sheekeeyaan wax kasta oo haddii aad maqasheen oo telefishiinaadka iyo raadiyaha guriga yaala wariye ayaa soo karkariyo soo bisleeyay ka bacdina idin soo gudbiyay sida darteed tixgelin gaar ah ayuu idinku leeyahay iyo inaad aad iyo aad u xanaanaysan wariyaha mudankiisa siisan maadaama uusan ahayn nin cidna la jiro oo gaar ah taas waa codsigii ma ku socday bulshadeena oo noocyada kala gudsan haday tahay dawlad iyo haday tahay shicibba wariyaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay wariye ogow inaad wariye tahay ay ku dhageysanayaan milyan ruux oo dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa isku jira wariyaha waxa suurtagal ah inuu maantay isiraahdo mowduucan maxaan ku yiraahdaa waa mowduuc yar bari hadduu baxayo gaalo muslim madow cadaan Soomaali dal iyo dibad intaas waa laga daawanay barnaamijku maanta oo Ismaaciil Sheekh Lifdaadinayo afcaribi ku baxaya Ingiriis ku baxaya Soomaali ku baxaya Soomaali ku baxaya qof kasta waa arkaya sida darteed waxaad sheegaysaa waa inay ahaadaan
wax maxaan ku yiraahdaa xaqiiqo ah oo dhexdhexaada oo wanaagsan ceebaha waxyaalaha ku keeni kara sida waxyaalaha la sheegay walaalkay Aydrus iyo maxaan ku yiraahdaa Ismaaciil Sheekh Khalifa barnaamijka daadihin ay sheegayaan sida sharuurka eexda iyo qabiil safashada wariyanimo ma tihid markaas wariyan ma tihid akhriso buugaagta wariyaha iyo shuruuciyada wariyada looga baahan yahay waad ka baxday xaqiiqada iyo xindaabkii wariye waxaad noqotay shakhsi caadi ah markaas walaa sidaa darteed haddaynu wariyaasha Soomaaliyeed nahay aanu u go'doonno shaqadeena wariyaha oo ah dhexdhexaad midda tacadiyada loo geystay saxafiyiintii hore ee dhintay in kaysaskoodii ma sha Allah hadal weyn buu soo xasuusiyay rabbi naxariista jannaha ka waraabay intii wariye naga tagtay oo naga baxday oo naga geeriyootay awlaadooda iyo xaasaskooda iyo guud ahaan Soomaalidana waxaan leenahay ilaahay kuwa ka qanaacad badan oo idin farxad geliya iyo samir iyo iimaan hayda ka siiyo waan idin garab taaganahay haddaanan xitaa wax idin tari karinin waa idin la qiiroona waan idin la damqanaa calooshan waa naga gubataa waan idin garab taaganahay cadaaladda hay-adaha waxaan leeyahay sidoo kaleeto weli cadaaladda waa idin fiirinaynaa madaxweyne kasta ha ahaado oo waddankaas kii birri qabsanaya waxaan rabnaa inuu soo faago tacadiyada wariyaasha loo geeyo kuwa hadda haya waxaan rabnaa inaanu maxaan ku yiraahdaa haddada u kaba gashadaan tacadiyaasha wariyaasha loo geeyo kuwii xukunka ka digay waxaan rabnaa inay mar labaad maxaan ku yiraahdaa ay u maxaan ku tacadiyaashii wariyaasha xilliga ay hayeen xukunka inay dabagal ku sameeyaan hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha nabadgelyada ciidamada qalabka sida noocyada kala gedisan waxaan rabnaa inay tacadiga wariyaha ilaa ay haddana lagama qancin meeshaas waa qaanadaas waa bannaanta wuxuun in loo sheego na raali gelin kara ama na qancin kara فرح عاد ما سنتهاي gabagabadii ay durs adoo soo koobaya waxa way maamulada ama heer gobol ha aadaan ama heer federal ha aadaan ka soo qabo wariye hadda aan u wareegtay madaxweyne heer waxaan heer maamulana waxaan wax Allah uga sheekay isla shaqooyinkii aan qabtay amaradii aan jeediyo kale to nin baan shaqada ka joojiyay kiina waa wareysay soo ma hoggaansamay mushaar bal ma siin waa wax u dhaxay maamulka wariye marka muxuu noqday in laga qaado ruqsadii ma taasoo kale lagu antoogo labo inta wariyaal dhimatay dadkii ka dhintay qoysaskii xaasaskii ilmihii waa بالنسبه ilmihii forbisi HRJ waxyaabahan gacanta ku inaa jirta oo ah inaan balqaaraan sameeyno maalinta waxay qaybisay HRJ iyo ilmihii forbis intaasoo agoontii saxaafadda agoontii qaranka kama gaari karno agoontii saxaafadda labo cadaalad taasoo ku tali jirnaa inaan idin la safarno Allah u naxariisto wax inaga dhintay adinkana Allah qalbigiina ka gooyo wixii murugo ku jirto badbeeq Allah idin siiyo abiin wuxuu ahaa nin maartay mukaafaxa oo munaadila oo u dhintay qadiyad saamiye hadii la garan lahaa wuxuu ku dhintay ma gaarsiisneen wuxuu geystay taasna marka waa idin la safanaa saxaafadda guud ahaan kana saddex ugu dambeyn in cadaaladii ay noo shaqeyneen oo kaliya aan naqaano ciqaabkeena laakiin ma arkin wali booltisaar ama shahaadana la siinayo wariye la siinayo lee taxqiiqaadkaas sameeyay arrintaas u bareeray halistaas daadadkaas ka dhacay uu tagay waxa soo sameeyay wali abaalmarin saxafi la siinayo ama wariye la siinayo ma kul ciqaabay وهذا وزدين داود يا الجودهان برنامجكي ديرة كلسن أو تضبط كان أنك جهل ليني تعدية لوجيستو الصحفيين تا iyo sababta keentay in Soomaaliya ay markale kaalinta koowaad ka gasho dalalka tacadiyada lagu geysto suxufiyiinta inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxa igala qayb galay saaxiibo sare waa Aydrus Maxamed Cabdi Af Sagaaro oo falanqeeye arrimaha caalamka sidoo kale gudoomiyaha hay'adda Media for Peace ama warbaahinta nabadda iyo suxufi sare Faarax Cabdi Warsame Faarax AP oo ah sagana suxufi Soomaaliyeed lana shaqeeya wakaaladda wararka ee Associated Press ama AP marka toddobaadkan barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamid ah toddobaadyada soo socda ee baydankii waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo Ismaaciil Sheekh Khalifa